بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قدوميها كميل جاركا أغل كسرة قدوغا دورشون قدومك أغل كسرة دمان سنة ترى شرفت له مرت شرفتك له أو كسوق يبقى الشيء ما يتهلكن waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudanayaal waxaa sharaf weyn iyo ammaanta inaan hortiina soo istaago anigoo u tirtamayo gudoomiye ku-xigeenka labaad oo aqalka sare anoo aaminsan inaan u leeyahay khibrad waayo aragnimo inaan ka qayb qaato guddoonka aqalka sare mudanayaal taariikh nololeedkayga wax yar haddii aan idinka sheego waxaan ka soo shaqeeyey aanu joogay dalka ingiriiska muddo 15 sano ah anigoo ku shaqaynayey qareennimo waxaan ka soo shaqeeyey kambaniyo waaweyn oo qareenno ah oo London ku yaalo anigoo u adeegayay ummadda Soomaaliyeed iyo bulshooyinka Soomaaliyeed oo ku cusubneed marka dalka Ingiriiska kuwaas oo Soomaaliya ka soo hijrooday waxaan qaban jiray keesaskooda waxaan geyn jiray maxkamadda waxaan dareemay intaan ayaga la shaqaynayay culays weyn dalkan ku jiro dad badan dhibaatooyin ka cararay yan keesaskooda galay waxa ii muuqatay marka in loo baahan yahay dalkan in dib loo dhiso dadkii aqoonyahanka ahaa dalka ka qaxayna in dalka dib ugu soo laabtaan si dalkeena wax looga qabto waxa aad iyo aad ii dhaqaajiyey keesaska dadka qaar oo dalka ka qaxay dhibaatada gaartay oo cadaalad darro baahsan aad iyo aad u dareemaya waxaan isiri haddii la helo cadaalad dalkeena waxaa way dad badan way ku soo laabanayaan taasaa isoo dhaqaajisay waxaan ku soo laabtay dalkeena waxaan nasiib u yeeshay inaan noqdo xubin guddiga madax bannaan oo dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka guddigaas oo aanay 3 sano ku dhowaad aan xubinna ka ahaa guddigaas wuxuu qabtay shaqo aad iyo aad u ballaaran maantana halkan looga dhawaajiyey ahmiyada ay leedahay dib u eegista dastuur guddigaas 3 sano wuxuu diyaariyey 3 option mise xulul oo Soomaaliya lagu dhaqi karo xululkaas oo loo gudbiyey baarlamaankii 9aad haddana baarlamaankii 10aad haddana baarlamaankii 11aad loo gudbin karo taas waxaad ka dareemi kartaan in aan aqoon iyo khibrad dheer aan u leeyahay dastuurka ku-meel gaarka aan garan karo meelaha loo baahan yahay in dib u eegis lagu sameeyo ayadoo la fiirinayo cutubka 11aad mudanayaal marweyn waxaa kale aan qeyb ka noqday ilaahay fursad i siiyey dowladdan markii la dhisay 2017 waxaa la ii doortay waxaa la ii magacaabay wasiirka cadaalad anoo aad iyo aad u jeclaa bahda cadaaladda in wax badan aan ka bedelo daraasad dheer aan ku sameeyey waxaa ii muuqatay in dib u eegis iyo dib u habeen lagu sameeyo bahda cadaaladda guud ahaan xeerarka garsoorka xeer ilaalinta ururka qareennada nootayooyinka barnaamijka u helidda cadaaladda dalka dhan iyo nidaamka federaalka oo cadaaladda oo loo yaqaano justice model yani xanaanka cadaaladda waxaan diyaarinay heshiisyo kuwaas oo aan dowlad goboleedyada la saxiixinay welina dib u eegista dastuurka ay ku jirto waxaan aaminsanahay cadaaladda inay halbowlo ay u tahay deganaashada Soomaaliya
waxaana loo baahan yahay golaha adeega garsoorka in la dhammaystiro maxkamadda dastuuriga la sameeyo si tafsiir oo saxa ay ugu bixiso xaaladaha dalka ka jiro. waxaan kale ilaahay fursad i siiyey inaan noqdo wasiirka gaashaandhigga anigoo ka qayb qaatay dubhabeynta ciidamada iyo shuruucda lagu dhaqo ciidamada si loo soo saaro ciidamo karti leh oo difaaci karo dalkeena dadkeena iyo diinteena. waxaan aad iyo aad ugu dadaalay isku xirka ciidamada qalabka sida iyo sidii loo heli lahaa guud ahaan ciidamo qaran oo amniga dalka la wareegi karo, taas oo aan ka shaqaynay heshiisyo caalami ah iyo AMISOM in hadda maanta lagu wareejiyo ATMIS, taas oo aan heshiisyadeeda iyo habkii dowladdeena ay ula wareegi lahayd guud ahaan dalka amnigiisana aan ka soo shaqeeyey, meelo badanna aan la tagay. waxaan kale aan ka mid noqday guddiga amniga qaranka 5 sano la soo dhaafay oo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo madaxweynaha ay ka mid yihiin. guddigaas oo aan aad iyo aad waxa aan ugu ogahay. waxaan kale ka mid noqday guddiga amniga iyo cadaaladda golaha wasiirada heer hoosaadka. waxaan talo sharci bixin jiray meelaha looga baahan yahay in talo sharci looga bixiyo, taas oo aan ula dan lahaa dalkeena in la toosiyo. mudanayaal aan marwooyin aqoontaas iyo khibradaas waxay igu dhalisay maadaama aan laanta fulinta wax badan ka soo shaqeeyey inaan noqdo senator aana ka shaqeeyo golaha sharci dejin. waxaa iga soo baxday daraasadii aan sameeyey dib u eegista dastuurka midnimada qaranka ilaalin ay u baahan tahay maadaama dalkeena burburay. sababta dastuurka looga dhigay nidaam federaal ah waxaa aasaas u ah in la ilaaliyo midnimada qaranka maadaama federaaleynta ay tahay dowlad goboleed kasta in meesheeda awood lagu siiyo la dhiso awoodihii oo yaalay caasimadana la daadejiyo. taas waxay siinaysaa dadka tuulooyinka ku nool inay awood khaas ay yeeshaan, dowlad goboleedyadana ay dadejiyaan awooddii dowlad goboleedyadana awooddii dowladaha hoos u dadejiyaan. marka arrintaas waxay ugu dhalisay in hirgelin iyo aqoon ay u baahan tahay. marka waxaa insha allahu khibradayda ku biirin doona anoo guddoomiyaha ku-xigeenka koowaad la shaqaynayo khibradayda inaan ku biiriyo. madda labaad oo aan ayadana muhim u ah aqalka sare in la dardargeliyo dib u eegista dastuurka iyo in golaha adeega garsoorka iyo maxkamadda dastuuriga ay muhim aad u tahay ayada inay ka qayb qaataan. waxaa si kale muhim aad u aan u arkay labada aqal siday wada shaqayn lahaayeen awoodahooda. dabcan waxaa lagu qeexay dastuurka kumeel gaarka, laakiin xeer hoosaadihii ayada naftooda awoodaha lagu qeexay si lasu waafajin lahaa guddiyadaas waxay u baahan tahay khubaro sharci yay u baahan tahay. marka waxaan aaminsanahay inaan khabiir sharci ahay oo arrintaas aan samata bixin karo, wax weyna aan ka qaban karo. midda aan horena uga hadlay haddana uga hadlaya dib u eegista dastuurka waxay asaas u tahay dalkan deganaashadiisa xagga siyaasadda, xagga maaragtay awood qiibsiga awoodaha dowladda federaalka iyo awoodaha dowlad goboleedyada, khayraadka qiibsigooda iyo guud ahaan horumarinta dalka. arrintaasna waxay ku qotontaa nidaamka federaalka maaragtay in la dardargeliyo. waxaan aaminsanahay in arrintaas wax weyn aan ka qaban karo. midda saddexaad oo xigta horumarinta aqalkan sare shaqaalihiisa senatarada iyo u helidda arrimaha amniga iyo dhaqaalaha ku hareereysan aqalka sare. waxaan aaminsanahay anagoo la shaqaynaya guddoonka in arrimo badan oo aan ka fikirayo inaan wax ka qaban karo ay jirto. waxaan rajaynayaa insha allahu in dhaqaalana loo heli karo
tababarna la heli karo xiriirka caalamiga oo lala samayn karo xiriirka caalamiga oo lala samayn karo dowladaha federaalka ah kuwaas kulli waxaa weeye waxa aan soo daraasiyey oo qoon badan aan u leeyahay aan aaminsanahay in aan wax ka qaban karo ugu dambeyntii waxaa aqalkan u baahan yahay in la dejiyo qorshe hooleed 4 sano soo socoto oo taabanayso dhinaca kasta qorshe hooleedkaasna laga ansixiyo aqalka marka qorshe hooleedkaasna loo fuliyo sidii looga heshiiyey madda ugu muhiimsan oo kale aan ku dari lahay hadalkayga arrimaha xuquuqul insaanka muwaadiniinta meel ay joogaanba iyo ilaalinta cadaaladda iyo saraynta sharciga waa arrin aad iyo aad muhiim u ah muwaadinka ma dareemayo inuu nabad qabo dowladdiisa ay tahay dowladdii markaas uu joogo ilaa muwaadinkaas xuquuqdiisa la sugo dadkii u dagaalami lahaa muwaadiniinta xuquuqdoodana aniga way taasna lama heli karo anigoo helin nidaam cadaaladeed oo dhammaystiran iyo nidaam dowladeed oo ku dhisan 3 laamood laanta fulinta laanta sharci dejinta laanta garsoorka laamahana waxaa waye waa inay kala madax bannaanadana waxay keenaysaa laan kasto in kormeerkeeda iyo la xisaabtankeeda ay u madax bannaanaato in laan kale ma aragtay ay awood ku maqoonin marka taasna in aan taabagelin doono yaan rajaynayaa mudanayaal imarwooyin anoo khibradaas iyo aqoontaas u leh dowladnimada iyo shuruucda dalka waxaan aaminsanahay haddii aan aqalka sare aan ku soo biiro guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad aan baal fadhiisto waxaan rajaynayaa wax badan inay noo hirgalayaan xagga shuruucdii oo loo baahan lahaa khabiir oo dibadda laga keeno in guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka ay heli doonaan sidaas daraaddeed anigoo u danaynayo danta qaranka waxaan idinka codsanayaa in codkiina isiisaan waana salaamaddiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu